runtii meeshaan annagu waxaan u soo gaarnay inaan gudanno waajibka qaranka waxaan diyaar u nahay haddii ilaahay yiraahdo inaan ka qayb qaadanno howlgalka guud ee socda ka socda caasimadda iyo daafeeda iyo guud ahaan gobolka Galgaduud iyo guud ahaan Soomaaliya waxaan rabnaa inaan u mahad celinno dhammaan intana soo dhaweysay waxaan uga mahad celinaynaa sida ay noola shaqeeyeen sida ay u garab taagan yihiin ciidamada qaranka waxaan anaguna diyaar u nahay horna ugu dhaaranay inaan gudanno waajibka qaranka inaan meel kasto oo cadawga argagixisada ay joogaan aan uga daba tagna haddii ilaahay yiraahdo hadda horna waa ugu dhaaran haddana waxaan diyaar u nahay ilaahay idimkii halkaan aan ka ballan qaadayna horna u ballan qaadnay inaan meel kasta uga daba tagno oo kooxaha argagixisada ay ku jiraan guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan haddii ilaahay yiraahdo halgankaas aad iyo aad u mahadsantihiin waqti badan isla joognaa kuma cusbin deegaanka waa ka shaqay jirnaa waana ka shaqaynaynaa maamul caasimad ahaan waxaan rabnaa inaan u mahad celino cid kasta oo gacan ka geysatay soo dhaweynta saraakiishan iyo ciidankan iyo dhammaan amniga caasimadda qof walba magaciisa iyo mansabkiisa aan rabaa mar labaad inaan ku soo dhaweeyo ugana mahad celiyo ka qayb qaadashada dejinta iyo soo dhaweynta qaybahan ka mid ah ciidanka xoogga dalka ee u yimid la dagaalanka iyo ciribtirka iyo haddii alla ku idmahayo in laga fogeeyo lagana dulqaado dhibaatadooda bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Galmudug gaar ahaan caasimadda iyo dadka ku hoos nool ee agaarkeeda doorka ka maamul caasimad ahaan aan ku leenahay waa door iska diyaarsan oo ayuu ahaa hore u socday gaday garab istaag tahay hadday tahay gaadiidkii lagu hawlgali lahaa hadday tahay dhiirigelintii ciidanka leenahay dadka reer Soomaaliyeed fariin uma baahna waa dad diyaarsan waa deegaanadii laga difaacay Puntland iyo Somaliland meeshan waa deegaanadii shabaab inta ka xoog badan wax looga qabtay weeye dadkan dhaqan bay u leeyihiin inay cadawga iska difaacaan waa wax awooyaasha ay leeyihiin waxaan leenahay wixii la ku yaqaan haleen ka helo halgankuna waa bilaabanaya insha Allah taala dadka ayaga diyaarba annaga daahsan mooyaane dadku waa diyaarba marka insha Allah taala ciidamadu waxay heli doonaan dhiirigelin fiican bay heli doonaan insha Allah taala wixii nagu yaqaanana waa heli doonaa guushaha